of the ministry, Sayyid Ali Omar, and Professor Abdi. MCH-ka la dhisay waxaa loo dhisay baahi ay haweenka u qabaan. haweenka dhibaatada haysa waxaa waaye waxay ku dhalaan banaanada iyo waxa kale oo MCH-kaas loo dhisay ilmaha nutrition-ka ah oo nafaqada daran ay ku dhacday iyo haweenka dhibaataysan ee banaanada ku dhalaayo si afarta xaafadood aysan isaga gudbin buundooyinka. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I have attended. وين مثلي سنة تسي سوتي بكلا أو كمان إنهم يشوفي كان هذا وكل بقى يعني ما تلو صوف. waxaynu maanta ka qayb qaadanay xafladii furitaanka MCH-ka haweenka HW ee haweeney dhiciso ee madaxda ugu tahay waa runtii may loobayno wanaag ay u sameeyay AMISOM ma aha mid xoreynta oo kaliya waxa kaliya ay ka qayb qaadatay inay maanta dadka nugul sida haweenka iyo caruurta ay wax u qabtaan waana mid aan la loobi doonin. Our purpose of doing this is to be able to have the community enjoy the peace dividends after AMISOM recovered Belet Wayne. We are looking forward to seeing this facility being used by the community to be able to improve on their health care. We have given this facility to the women group and local governance, and they particularly requested the central government to be able to provide them with medication, kit and personnel to work in this facility. The health facility we have provided today is a part of our broader projects that we are doing all over Somali. We have done projects in Kismayu, we have done projects in Baidoa, and now we are here in Belet Wayne, and we are also looking at Galgaduud to see how we can work together with the Somali people. Hold there. Hold.